maalintaa sagaalaadku yuusan kaa fakanin haddii maalmihii kale aad soomi weysay ood awoodi weysay oo shayddaanka iyo naftu ay kaa adkaadeen halkaa maalin ku mitid walba ugu dambayn waa maalinta carafo maxaa yeelay nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can sawmi yowmi carafa nebiga sala allahu calayhi wasalama waxaa la weydiiyey maalinta carafo soomkeeda ayaa la weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo maalintaa carafo soonkeeda maxaanu ka helaynaa ayaa lagu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya sanadkii ku soo tegey ayaa ilaahay kugu dhaqaa iyo sanadka soo socdana ilaahay waa kugu mayrahayaah oo ilaahay waa kugu dahirinaya oo ilaahay dembi dhaafuu kugu siin waa takfiir sanatayn yacni 2 sano dembi dhaafkood ayaa halkaas maalin soomka aad sooman tahay ayaad ku helaysaa buu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh maxaa kaaga qiimo weyn maxaa kaaga khayr badan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alla deeqsi ah waa alla deeqsinimadiisu ay ballaaran tahay oo wax la barbar dhigi karaahi aysan jirin walaalayaal hal maalin oo aad soomtay oo keli ah ayaa ilaahay wuxuu kugu siiyey 2 sano oo dembi dhaafa 2 sano wixii dembi aad gelaysay ayaa ilaahay kaaga tirtiray addoonka marka dayacaya fursadda qaaliga ah amase aan yacni iska moogba oon daraynsanayn ama intuu muxaadaradan dhegaystay haddana aan ku camal falaynin oo axaadiistan intuu dhegaystay fadliga ay iska leedahay yowmu carafa dhegaystay haddana iska dhegatiraya waa addoon naftiisii dayacay waa addoon caduwun linafsihi waa qof naftiisii cadow ku ah waa qof naftiisii aan yacni danaynaynin masaalixdii nafsaddiisa iyo meesha horumarka adduunyo iyo midka aakhiro laga helayo sharafta adduunya iyo midka aakhiro meesha naftiisa ay ka helayso qof aan daraynsanayn oo naftiisii dayacay weeye walaalayaal maalmahan walaalayaal 10ka ah fadliga ay iska leeyihiin waxaa ka mid ah gaar ahaan maalinta carafo xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinayey ayaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi maa min yowmin akhara min an yactiqa allaahu fiihi min annaari min yowmi carafa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi maalin ka badan ma jirto maalinta carafo inta addoon oo ilaahay uu naar ka xureeyo maalintaa carafo waa bisha dilxija maalinta ay 9 tahay inta ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon ah oo uu naarta ka xuraynayo maalin ka badan oo ilaahay addoommadiisa uu xoreeyahay ma jirto walaalayaal bal eega bal fiiriya maalintaa carafo kumanaan iyo malaayiin qof oo xaq u yeelatay in la cadaabo oo qabriga lagu cadaabo oo ihaano ay la kulmaan adduunkooda iyo aakhiradooda inay khasaaraan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yowmu carafa wuxuu ku fiiriyaa il naxariis leh ayaa ilaahay ku fiiriyaa dembigoodu ilaahay dhaafa kumanaan iyo malaayiin ayaa ilaahay naarta ka xoreeyaa yowmu carafa walaalayaal marka maalmaha sidaasa aanu ku baraarugno maalmaha sidaasa aanu dareenno maalmaha sidaasa aanu quluubteenna u soo jeedinno maalmaha sidaasa aanu u doogsanno xoraynta socota naxariista socota barakaadka da'aya raxmaadka da'aya hibaadka da'aya aanu gacmaha u dooganno walaalayaal maalintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu daro kumanaanka la xuraynayo yowmu carafa waa maalinta cidqu min annaar ay shubmayso waa maalinta addoommada faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisa uu ka xuraynayo sidaas awgeed waa maalinta uu shayddaanku uu aad u carab badan yahay yowmu carafa shayddaanku wuu yaqaanaa maalmaha kale wuu ka yaqaanaa yowmu carafa liannahu waxa uu ciil iyo caro iyo xanaan maalin uu ka carab badan yahay uu ka dulli badan yahay shayddaanku ma jirto yowmu carafa liannahu wuxuu arkayaa dad fara badan oo u islahaa naartay kula gelayaan oo ilaahay sufuufta naarta uu ka saarayo oo sufuufta ahluljannaha ilaahay uu ku darayo subxaanahu wa tacaala lidaalika imaamu maalik raximahu llahu tacaala kitaabkiisa almuwadda wuxuu ku wariyey inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh maa ru'ya shaydaanu yowman huwa fiihi asqar walaa adxar walaa adxar walaa axqar walaa aqyad minhu min yowmi carafa wma dalika ila lima yara min tanazul الraxma wa tajaawuzi اllahi tacaala can dunuubi اlcidaab wuxuu nabigu yidhi salى اllahu wasalama wabaaraka calayh shayddaanka lama arkin maalin uu ka dulli badan yahay
maalin uu ka caro badan yahay maalin uu ka ihaano badan yahay maalinta carafo maalinta carafo maalin uu ka dulli badan yahay uu ka ihaano badan yahay oo uu ka ciil badan yahay sooma marin shaydaanka wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam maxaa maalintaa yowmu carafa dulleeyey shaydaanka maxaa maalintaa shaydaanku uu la caraysan yahay wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam limaa yaraa min tanasuli raxma waxa uu arkayo darteed raxmadda ilaahay oo shubmaysa raxmadda ilaahay oo soo degaysa addoommada faraha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xuraynayo wa tajaawuzi illaahi tacaala can dunuubi alcidaab dembiyada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhaafayo dembiyada waaweyn oo ilaahay uu cafinayo ayuu arkayaa indhihiisa uu ku arkayaa shaydaanku waa maalinta uu caroonayo shaydaanku maalinta ugu caro badan yahay weeye yowmu carafa liannahu wuxuu arkahayaa xuraynta socota liannahu wuxuu arkahayaa abaalmarinta waaweyn wuxuu arkahayaa shahaadaadka iyo jawaa'ista soconaysa iyo abaalmarinada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixinayo ayuu arkayaa sidaas awgeed aanu ka faa'iidaysanno